intii uu joogay waxaan ku iri war madaxweyne soo ma ogi 8 February inay soo dhowdahay oo deadline-kii doorashada soo dhow yahay maxaa dhacay yiri waxaan iri soo ma haboon inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro process-ka uu socdo warqadii Xasan Sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dawladdan ay tahay dawlad aanan waxyaabaha masiiriga oo qoran tahay waa marna internet-ka ku aragteen oo muujinaysa in dawladdan ay doorashada maamulayso qor warqadii xataa koobiyan wata anoo ajendaha noogu jirtay lama sii gaarin waxa gadaa garbahariya dhaaf weyn warqadana qor horta warqadii iyo markuu maqlay 8 February oo wuxuu yiraahday anigu waxaan isleeyahay danigayga soo waxaaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu proof gareeyo inay 8 February wax la jirin wuxuu yiri 8 February wax la jirto dastuurka iyo ogol waxaan dastuurka intee ka ogol yahay baarlamaanka ba midka bedel midka maxaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga horta meel hadda iska manaanaanays ma jirtee ku simo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad dhahday shuruucay ansixinayaan ceeb weeye dawladnimada ceeb ku tahay aflagaad weeye adiguna suuragal maaha intii Xasan Sheekh gartay ma garan weyd inta samee waa baxay caradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexada u tahay oo tuu baarlamaanka yiri Siciida waxa iska qorqorin jiray aniga waxaan isleeyahay ninkan marna lagu xijinayo waa daarood leeyahay marna leeyahay maamul goboleedka u horeeyay oo u weynaaba tihiin roolka qaad saas odayada iyo dadka wax garadka iyo simada oo dhan markay la soo hadlaan maaragtay leeyahay warmaandhow Soomaali meel ku kala tagaysaa ka talin waxaan isri bal intii karaankaaga dadaan waa tagay 8 markii dhaafay oo maalin iyo laba iska maqanto shaqadii iska socoto way soo wacay waa wada hadalna haye 8 maxaa dhacay waxa ma dhicin haye sideed waa u jeedaa inay waxba dhicin ama nimanka ragga hurdaano markoo sidoodii ka caamaayro gidaarada ka daataan waxyaab kale habeenkii dhow markii waxa dhaceen shalay miyam soo wacay wuxuu waxa tiri weeyr nimankii hawe gidaarada ka soo laa wax soo daatay ma aragtay weeyr waxa yar ma arag ciidamadan oo dabaabaadka wadana ma ogeynay horta gorgorkan la sheegay anigu waxaan ku maqlay maalin la yiri galmudug la keenay oo dagaal ka socday gada in la geeyana waa maqlay goobta saddexaad ay ka dagaalameen waxay noqotay daljirka dahsoon horta inaad saas inaad u kood gareysaan aan rabaa haram cad iyo gorgor meel kale ay ka dagaalamaan ma leh aniga waa research garay waxaan ciidanka intee leeyahay waxa la sheegay ciidamada turkidu tababaray iyo kuwa waxa la isku dardaro ciidan hadda aniga aan sheegay dadka nixinayo tiro badan oo dabaabaad wata hadda hal maalin shabaabka ma aadin wadada afgooy iyo xamar isku xirto xiranta hurwa lama tigi karo war gorgorkan haday dadka wax u qabanayaan jidadka maxay u furi waayeen niman meelay ku jiraan oo cid arag oo ani hadda wax lagu akhriyo ma garanayo hadda awal waxa la soo saas bay yeeli karto dadka reer Puntland saas dhahan laakiin ogaada Soomaalida naqaanimaa ilaa al-shabaab si ay ka dhigto waa la arkay Soomaali Soomaa inay isqarxiyaan oo dadka qeyracaan nimankan aniga sida loo tababaray shaki weyn ay jira marka wax naxariisa oo leeyihiin ma jirto horta dalka meesha ku socdo waxaan rabaa inaad si fiican u fahamtaan dadka waxa xun looma sheego balad laakiin waa qarsan weyn run aan sheegay maxaa yeelay haddaan ka digi weyno oo dalkan dagaal sokeeyo ka dhaco oo qabaa'il la isku laayo oo xoog la isku sheegto oo dalka dabaabaad la jiirsiyo annaga dambiilayaal noqonayna nimanka internationalka hadda dhahay 17 September hal ixtiraam 17 September alam tara soo dhaaftay 19 February ka dambeysay habeenkii markaan doodayna wuxuu dhahay in dhacde oo aniga waxa ka yeersiiyay hadda aan garanayn ilaa maanta runtaan iska sheegayay ayaantii horena wuxuu yiri adsabaan ku tukanayna maalintii dhaweydna waxbuu sheegay
labada marba waxbaa dhacay ani ay dhoonna ciduu shaqaynayo laakiin reality-ga marka loo hadlo waxaan ku iri bal daljirka dahsoon ninka wuxuu rabo hadho cidda ka yeersiisay ilaan madaxdii intay hadasho hadday dhihi lahayd dawlad ma jirto madaxdu waa hadlaysay maalintii ka horreysay meeshay maraayeen waxay lahaayeen mudaaharaad peaceful aan rabnaa mid nabadeed aan rabnaa ninkan wuxuu yidhi haddaaba samaysay gartaya kii maalinnimadii dhacay oo ra-iisul wasaarihii 3 sano iyo barka ra-iisul wasaaraha ku ahaa oo calankiisa u lulaaya xabadda lagala daalay maxaa ku fasiraysaa wuxuu yidhi ciddii sharciga ka hor timaata tallaaba laga qaadaya horta madaxweynaha meesha noo fadhiya literally kolle ari waa iga geesan yahay intaan hubo laakiin geesinimadaas tii la rabay miyaa mise mid kale miyaa idinkaa ka jawaabi doona maxaa yeelay geesigu waa midka xaqana ka hadla xumaantana dadka gacanta ka qabta ma aha nin ku dhiirada wax cirib dameedkeeda uusan garanayn runta markaa inii sheego waxaa hadda xamar ka socda waxaan ka baqayaa inuu dagaal sokeeyo oo hor leh iyo qax hor leh dadku waxaan hadalkay kusoo gabagabeynaya ka codsanaya dadka reer muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan godin yahay ima goysan haddaan gabalkay kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa degaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaalada ha u kala saarinina dad mararka qaarkood caadifadu qaadaysa arkaya dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku wuxuu heshiis ku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii walwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye magaaladii xamar haddii laga wasuusay oo laga shakiyey oo la yidhi cuntadeeda ha cunin oo waa sunbaa ku jirta oo waa lagu dilayaa war ummad toror ku jirta ma al-shabaab aan ka baqnaa mise filla soomaaliya aan ka baqnaa horta reality-ga aanay sheegaya maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanaya iyo midda al-shabaab sakeeyada wax difference u dhexeeya male maalin walba waxaan ku jirnaa trap dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxa la geeyay inaysan hadli karin ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra'iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyay inuu dalka Soomaaliya madax ka noqdo oo Sheekh Shariif ahaa iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyay ka horreeyay xurmada u qoori waayay oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan Kismaayo marna iyagoo beledweyne aadi rabay laga hor istaagay maantana iyagoo hotel jooga lagu xabadeeyay ra'iisul wasaarihii u shaqeyn ayaa dhaxas waxa dhigi jiray ra'iisul wasaaruhu muxuu u hadlay ayaa wixii jira u sheegi waay soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nin ya waxa dhigi jiray muu wax cadeeyo halku markuu yimid ragga kale waxay muu hadlo warninka iska daayay marka waxba jireen sababtoo haddaan wax ilaahay waxaan xishoonin haddii ilaahay kugu xiriiriyo khatarteeda leedahay runtii waxa Soomaaliya ka socda wax laga aamusi karo maaha waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed si midaysan iyagoo iskala saarin dictatoriyad inay ka hor yimaadaan iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan wax nin leeyahay ciidamada ana iska leh ciidamadaydu yiri hadda tii u dambeysay wallahi ana been ka sheegay wuxuu yiri garow hal yimaado ma imaanaysan lafeena uga baqnay wuxuu yiri dhul samareeb ruuxay dhul samareeb hadda kan inuu xabada ka dhacay ma ana waxba kama dhacayaan ugu dhahay I don't know ciduu og yahay macnaheedu waxay tahay ku wax soo tuurna waa yaqaan literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo waxa meesha soo socdo niman international la yiraahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo HVM oo ku haya waddamadooda waxay u qoraaciga jirta laakiin ana waxa inii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku matali karin anigu aadima abraha iyo ciyaalada meelaha la sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana mu umaleena inuu daarood harb jiiday ruuxa inii sheegayaa ha ku kasoomina nin daarood harb jiiday aan soo arag hatta marraacaan in harb jiiday soo arag marka caadifada intii la iska daayo dardaarankayga ugu dambeeya waliba saaxiibada kale oo Soomaalida waa necab tahay Puntland aan kula dardaarmay
puntland waxaan oran lahaa marna yaysan aqbalin nidaam soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo ay wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaaraan bay ka tahay waa in waxa soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saaranta soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan ba ugu balanbala badan hadhowna oo aan la wadi karin dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyey ku siray iyo niman xoog wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan caruurta iyo habra aan warhayn oo TV-ga iyo aan fiirsan waxaas u sheekeeya dadkiina mas'uuliyiintu halka jooga waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaaf hadda aamus lahaydeen oo nila kaxaysan lahaa oo sida hadda nimanka xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto iyo haddaad damiir yeelanayd horta idinkeennii taallaa wixii dhacay 80-aadkii hadday soo noqdaan waa waxaan annagu isbadnay waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lama taabtaana raadinta soomaali federaala oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro haadaan in lagu dhaco anugu muku talinayo soomaali aan jecelnahay haadaha lagu dhaco muku talinayo waxaa la rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan oo wixii qornaal ixtiraama yimaadaan waxaan qabaa xoogga waxaa saartaan puntland iyo jiritaankeeda inaadisa